بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وعنا وركسان الدعوة إلى هالكن وجنالك حلاشة دنيا وعلى بايدك وجود من وربحنا جدا به دنيا دعالة ذي وليبا مقالة نسلنا هي أنت إذا كحرن آدي وحيس جريان هذانا وعصوب تاسل مركع عن هذا قيب هروجا هين شنال كان حلاشة دنيا سبسكرايب لايك شير وليبا كومنت جاي نقولها في قيبها هوسه قرالك barnaamijkeena maantana waxaana diradda aanu ku saari doonaa isla markaana aanu kaga hadli doonaa xaqiiqaha dhabta ah ee dowladda dalka Turkiga xilliga ay soo gashay wadamada geeska bari ku yaala gaar ahaan wadamada Tanzania iyo Soomaaliya. barnaamijkeenan ayaa arrimahaasi oo dhan aan diradda aanu ku saari doonaa. ku soo dhawaada anigoo shiinaayda la socodsiinaya. sanadku markuu ahaa 1854 iyo wixii ka horreeyay dowladda dalka Boortaqiiska ayaa isku dayday inay xarumay waliba fariisimo ay ka samaysato qaybo ka mid ah wadamada bariga Afrika ku yaala gaar ahaan dalalka Tanzania iyo Soomaaliya. dalka Soomaaliya Boortaqiisku waxa uu fariisimo ka samaystay magaalooyinka Barawe, Kismaayo, Berbera, Warshiq, Cadale iyo qaybo ka mid ah gobolada Muduga. isagoo intaasi waliba sidoo kale dalka Tanzania ka degay xeebaha Zanzibar. dalkaasi Zanzibar gaaraan dalka Tanzania ayaa u ahayd xudunta ugu weyn ee saldhigga kooxda Boortaqiisku ay ka sameysteen fariisimaha. arrinta ugu weyn ee dowladda dalka Boortaqiisku ay fadhiyada uga sameysatay wadamada Tanzania iyo Soomaaliya ayaa ahayd sida lagu sheegay warbixino dhowr ah la soo saaray 1854 inay uga lahayd boqortooyada Boortaqiiska inay ku weerarto isla markaana ay ku qabsato magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama isla markaana ay la wareegto xudunta Islaamka gaar ahaan Kacbada. iyadoo sidaas ay tahay isla markaana ay doonaysay boqortooyada Boortaqiisku inay sidoo kale fariisimo ay ka sameysteen wadamada Yemen iyo Djibouti oo xilliga Soomaaliya ahayd iyagoo doonay weerar aad u xoogan ay ku qaadaan boqortooyada xilliga ka talinaysay dalka Saudi Arabia isla markaana doonaysay in xoog ay kula soo wareegaan ayna qabsadaan Kacbada. arrintu sidaasi ay tahayba waxaa markiiba durbadiiba shirqooladan boqortooyada Boortaqiisku ay qorshoonaysay isla markaana ay ku doonaysay inay ku baabiiso Islaamka ayaa ka war helay kooxay Cuthmaaniyiinta xilliga boqortooyada dalkaasi ka dhisnayd ee Turkiga. Cuthmaaniyiintu waxay dagaalo ay sidoo kale ay ku qaadeen goobo badan oo kooxaha Boortaqiiska ay ku sugnaayeen iyagoo sidoo kalena ciidan aad u fara badan u soo diray wadamada Soomaaliya, Tanzania iyo Yemen oo xilligaasi Boortaqiisku ay fariisimadooda ay ku lahaayeen. dowladda dalkaasi Cuthmaaniyiinta dowladda dalka Turkiga haatan ay ka talisay ayaa waxa ay ku mannaan kun ciidan ay soo gelisay gudaha magaalooyinka ay ka mid yihiin Barawe, Berbera, sidoo kale ay waliba magaalada Warshiq ee degmada Kismaayo xilligaasi ay ciidanku ay Boortaqiisku ay ku sugnaayeen. sidoo kalena kooxaha Cuthmaaniyiintu waxay ciidankooda ay ku baahiyeen jasiiradda Zanzibar oo xilligaasi kooxaha Boortaqiisku fadhigooda masaldhigga ugu weyn ay ku lahaayeen. Cuthmaaniyiintu waxay dagaal aad u xoogan iyagoona difaacayeen diinta Islaamku ay la galeen kooxaha Boortaqiiska oo doonaya dhagartooda inay ahayd inay cagta mariyaan magaalada Makka al-Mukarrama oo ku yaalo xaramka barakeysan. kooxaha Cuthmaaniyiintu xilligaasi u badnaa dad muslimiin ah ayaa dhagarta Boortaqiisku ka helay waxayna dagaalka ay ku jibiyeen kooxihii iyagu Boortaqiiska isla markaana xooga doonayay inay ku maquuniyaan boqortooyada Saudi Arabia xilligaas ka talin jirtay si ay meesha uga saaraan Kacbada. ninkii aasaasay oo isagu isla markaana hoggaan ku ahay kooxaha Cuthmaaniyiinta ayaa la sheegay inuu qabsaday meelo badan oo kooxaha Boortaqiisku ay ku sugnaayeen gaar ahaan magaalooyinka Barawe, Kismaayo, Cadale, Warshiq iyo waliba qaybo ka mid ah dalka Yemen oo xilligaas kooxaha Boortaqiisku fadhiyo wanaagsan u ahaa waxaana sidoo kale gacanta ku dhigeen xaruntii ugu weyneyd magaalada Zanzibar ku taalay jasiiradda. kooxaha Cuthmaaniyiintu ayaa gebi ahaanba la wareegay gacan ku haynta magaalooyinkii ay ku sugnaayeen kooxaha Boortaqiiska ahaa. ciidanka Boortaqiiska gebi ahaanba way isaga carareen dhulka koonfurta iyo waliba bariga qaaradda Afrika oo ay ugu badnaadeen qaaradda Afrika barigeeda sida Soomaaliya iyo Tanzania. haddaba sidee ay ku soo gashay dowladda dalka Turkiga dhulalka Soomaaliya ay ka mid tahay taariikhan marka loo fiiriyo sidaan soo sheegay kooxaha Cuthmaaniyiinta markay ka adkaadeen kooxaha Boortaqiiska isla markaana cagti ay mariyeen xukunkoodii ayaa dowladda dalkaasi Cuthmaaniyiinta Turkiga ka dhisnaa ay sheegeen inay iyagu saldhigyo waaweyn ay ka furteen isla markaana ay saldhigteen wadamada ay ka mid yihiin Yemen, Soomaaliya iyo waliba Tanzania si looga difaaco magaalada Makka al-Mukarrama xaramka oo ku yaalo deegaanadan. Cuthmaaniyiintu awoodoodu aad u weyneyd ayaa sidoo kale waxa la ogsoon yahay in ay saameyn badan ay ku yeesheen goobihii ay degeen.
haddaba taariikh ahaan aanu ogaano dowladda dalka turkiga cuthmaaniyiintu xilligaasi gacanta ku haysay sidee ayay ku soo gashay dalka soomaaliya markii bortuqiiska laga saaray deegaanada baraawe kismaayo cadale warshikh berbera iyo weliba qaybo ka mid a dalka jabuuti iyo yeman ayaa waxa u suura gashay dadkii iyagu cuthmaaniyiinta inay gudaha usoo galaan magaalooyinka waaweyn islamarkaana ay iyagu barasho iyo weliba ay la dhex maraan dadkii deegaanadaasi ku sugnaa iyagoo diinta islaamkana wax badan uga faa'iideeyey dadkii deegaanadaasi ku sugnaa marka loo eego 1594 cuthmaaniyiintu xilligaasi waxay ku dhex milmeen shacabka soomaalida iyo yemaniinta iyo sidoo kale dadka tanzania u dhashay xilligaa ku noolaa jasiiradda zanzibar dowladda dalkaasi turkiga ayaa in badan waxay galaangal siyaasadeed wixii markaa ka dambeeyey ay ku yeelatay hanaanka siyaasadda wadamada bariga afrika ku yaala gaar ahaan dalkaasi soomaaliya markii ciidanka ay kala baxeen bortuqiiska sidoo kale cuthmaaniyiinta ay dib ugu laabteen wadankoodii markii la baabi'iyey cuthmaaniyiintu awood fara badanna loo adeegsaday ciidamada turkiga xilligaasi awoodda ugu badan iska lahaa cuthmaaniyiintu ma aanay ka baxeen qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya laakiin raadadkoodii ayaa ka muuqda qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka xeebaha ku yaala turkiga ayaa loo arka awoodaha ugu waaweyn ee xilligan ka jira dunida dacaladeeda marka la gaaray burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya dowladda turkigu wax il gaar ay ku haysay hanaanka isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay gudaha dalka soomaaliya waxaana durbadiiba ay diyaarisay siyaasad ay wax uga qabanayso xaaladaha cakireen ee ka jira gudaha dalka soomaaliya xilligii dhibaatooyinka faraha badan ay ka dhaceen dagaaladii cuslaa kadib abaaro ba-an ku habsaday shacabka soomaaliyeed wuxuu turkiga u noqday wadankii ugu horreeyey madaxweynahooda rajab tayyib erdogan xilliga ra-iisul wasaare ka ahaa dalka turkiga uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo caalamka soo jiidatay oo ka jeedayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana sidoo kale inta badan caalamku xilligaasi indhahooda ay u soo jeesteen gudaha dalka soomaaliya wafdi hogaaminaya xilligaasi ra-iisul wasaarihii xilliga markaa uu ahaa rajab tayyib erdogan ee qaybo ka mid a golihiisa wasiirada ayaa soo gaaray magaalada muqdisho shacabka inta badan ee soomaalida aqoon dheer uma lahan taariikhda dowladda dalka turkiga ay soo cagriteen waxaana dadku ay u maleeyaan oo keliya in turkiga uu soo galay soomaaliya wixii ka dambeeyay dagaaladii sokeeye gaar ahaan dhibaatooyinkii faraha badnaa ee cunnayaradii weliba sidoo kale abaarihii ka dhacay gudaha dalka soomaaliya laakiin taa ma ahan kumanaan kun sano inka badan ayay dowladda dalka turkiga ay galaangal siyaasadeed ay ku lahayd marka loo eego gudaha dalka soomaaliya iyagoo soomaaliyana ka xoraysay cadowgii bortuqiiska ee doonayay in soomaaliya saldhigyo laga weeraro xaramka ay ka dhigtaan shacabka soomaaliyeed ayaa inta badan u arkaa in dowladda dalka turkiga xilligan ay soo galeen oo keliya waxaana saldhigyo militari iyo weliba safaaradda ugu weyn dowladda dalka turkiga ay ka furatay wadamada marka loo eego qaaradda afrika gudaha dalka soomaaliya saldhig aada u weyn oo ciidanka soomaalida lagu tababaray islamarkaana kumanaan kun oo turkiya ay ku sugan yihiin ayaa ku yaala gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan xeebta dhinaca kaabiga ku haysa magaalada muqdisho ee loo yaqaan halkaasi jasiira laakiin turkiga markaad aragto uma muuqdo oo keliya in soomaaliya xilligan uu soo galay laakiin markaad aragto qaabka iyo weliba diyaargarowgay safaaradda iyo taliska ciidanka ay ka furteen xerada xalane ayaa u eega ama jasiira mid inta badan xiliyo badan uu soo joogay laakiin dadka intooda badan soomaalida kuma baraarugsan xiriirka qotada dheer ee dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale dalka turkiga kala dhexeeya markaana dib u milicsana taariikhda intaasi 1998 markii cuthmaaniyiintu ay qabsadeen qaybo ka mid ah xeebaha dalka soomaaliya waxa sidoo kale ay sharaxaad iyo weliba ay iyagu ay siiyeen dowrka dowladda cuthmaaniyiintu ay ku leedahay xoreynta qaybo ka mid ah wadamada islaamka arrinta siday doontaba ha noqotay kooxaha cuthmaaniyiintu xilligaasi ayay soo galeen gudaha dalka soomaaliya laakiin maahan oo keliya 2006 inay soo galeen dowladda dalkaasi turkiga iyadoo ciidamada cuthmaaniyiinta ugu badnayd soomaaliya laakiin turkiga galaangalka siyaasadeed uu ku leeyahay hamigiisa siyaasadeed ee aadka u fog uu ka leeyahay gudaha dalka soomaaliya maahan xilliga mid soo bilowday waxa waa mid soo bilowday xilligii cuthmaaniyiinta doorka madaxweyne rajab tayyib erdogan uu ku leeyahay hanaanka siyaasadda dalka soomaaliya maahan mid xilligan oo keliya soo bilowday laakiin waxa uu og yahay in siyaasadda dalka soomaaliya turkiga uu ka leeyahay ay tahay mid aada u fog maadaama soomaaliya ay ka xoreeyeen bortuqiiska xilligaasi doonayay in saldhigyo military ay ka samaystaan
xaaladaha ka jira gudaha dalka Soomaaliya marka loo eego tababarada ciidamada la siinayo dhaqaalaha dowladda dalka Turkiga ay siinayso dowladda Soomaaliya iyo waliba taakulaynta loo fidinayo shacabka Soomaaliyeed dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee u baahan yihiin dowladda dalka Turkiga ay siisa ayaa ah mid ku tusinaysa xiriirka qotada dheer ee kumanaanka kun ee soo socday ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya isla markaana ay doonayso dowladda dalka Turkiga in dhowaantan ay shaacisay baarlamaankeedu in ciidamo ka socda badda Turkiga la keeno xeebaha dalka Soomaaliya haddii ay dhacdo dowladda dalkaasi Kenya inay isku daydo in awood military ay kuwa kula wareegto go-aankii dhowaantan ay ICJ ka gaartay muranka dhinaca badda ah isla markaana dowladda dalka Turkiga arrintaasi ay u babacdhigto waa midda ku tusinaysa in xiriirka qotada dheer ee dowladda dalka Turkiga arrimaha siyaasadda militariga iyo waliba logistikada ee dowladda dalka Soomaaliya ay ku yaboohayso ra-iisul wasaaraha dalkaasi xilliga ahaa Rajab Tayyip Erdogan isla markaana haatan madaxweynaha dalka Turkiga ayaa balaayiin dollar ku bixiyay sidii shacabka Soomaaliyeed loo taakulayn lahaa hamiga siyaasadeed ee dowladda dalka Turkiga ay leedahay isla markaana ka leedahay Soomaaliya ma ahan mid haatan soo bilowday isla markaana soo bilowday xilliyo fog waxaana uu socdaa in ka badan 1500 oo sanadood haatana dowladda dalka Turkiga waxay ku taamaysaa in iyadu ay la wareegtay guud ahaan marka loo eego hannaanka siyaasadda dhaqaalaha ciidamada waliba wax soo saarka gudaha dalka Soomaaliya inkastoo ciidamo aad u fara badan oo kumanaan kun gaaraya ay ku sugayeen xerada tababarada ee jasiira isla markaana xarunta ugu weyn ee saldhigga qaaradda Afrika uu ku leeyahay Turkiga ay joogaan ciidamo aad u fara badan Turkish isla markaana qayb ka qaata hannaanka howlgallada ciidamada ay kula dagaalamay kooxaha burcadbadeeda isla markaana xeebaha Soomaaliya waxaa ku sugan maraakiib dagaal oo dalka Turkiga uu leeyahay taa ayaa ku tusaysa hannaanka siyaasadda fog dowladda dalka Turkiga ee ka leedahay gudaha dalka Soomaaliya guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan maanta aan diiradda ku saaraynay sida ay dowladda dalka Turkiga ku soo gashay kooxaha Cuthmaaniyiinta gudaha dalka Soomaaliya anigoo shiidan la socodsiinay tan kulanta dambe sida ay nabadgelyo